rayaanbo kiiska ilaahay mahadii waanu helay waxaan weligeey dhicin oo kiisaska inta la eeg ee dhacay sanadka waa 2016 wanigi hore noogu sheegay waxa kale loo hayaa afareedaysano oo kale oo iyaguna ka qayb qaatay qarinta dambiga waxa la qofka ka cararow sharciga u baa ku soo qaban oo baabuurka ugu horeeyay ay rakaab saarnaayeen in dhammaan la isku dayin la wada qariyo anagu ka eelahan waxaan isku daynay runtii inaanu xakamayno oo isxakamayno inaanu la shaqeyno ciidankii 13 bisha 7 2025 ya deegaanka Carrayaanbo ee ka tirsan degmada Arabsiga gobolka Gabiley lagu jiiray Ali Said Cabdi Umar oo loo garan og yahay Xamaro waxana shilkaasi sababay gaadiidka nooca loo yaqaan booyada waxana maanta halkan iyo xafiiska barsaabka gobolka Gabiley maanta isku yimday ciidamada ilaalada wadooyinka madaxa eeraanta gobolka taliyaha qaybta taliyaha militariga iyo sidoo kale ehelada marxuumkaasi waxana halkan lagu shaaciyay in gacanta lagu soo dhigay 7 eedeysane oo ku eedeysan shilkaasi sababay sidoo kale waxa ay sheegeen in 4 eedeysane oo shilkaasi qariyay iyagana sidoo kale gacanta lagu soo dhigay waxana ay bulshada reer Soomaaliland iyo gaadiidlada dirawladana uga digeen inay qariyaan shilalka ka dhaca wadooyinka kulay kiiskan maanta isku nimidnay 22 23 waa kiiskii ka dhacay gaariga ninka ka dhacay rayaanbo kiiska ilaahay mahadii waanu helay waxaan weligeey dhicin oo kiisaska inta la eeg ee dhacay sanadka waa 2016 wanigi hore noogu sheegay weli maan arag sanadkan inta la jiiro qof oo wadadu furan tahay oo inta isku raacaan dadweynuhu haddana la waayo waa arin aad noogu cusub arintaasi xoogaanu saaray anagoo kaashanayna gobolka Gabiley oo ugu horeeyo barasaabku iyo saraakiishiisa taliyaha qaybta xeeraalinta hawshaasi aad iyo aad uga howlgalay anaguna runtii aan adeega muxuu ahaa aan aqoonta taraafikada adeegsanayn waxaanu soo qabanay 16 maxbuus iyo 16 kii gaari qaasatan waxaanu ka dhaxalay oo bishii aan helay eedeysanayaashii jiiray meesha ninka jiiray gaarigu markii hore dheen uu ka dhacay laba booyood oo ya daba maray labadaba wajirasnay noo qorteen marka taasina waa ilaahay mahadii dadkana waxaanu u sheegaynaa dadweynaha gaadiidka wata wax kasto oo qarisaan oo muxuu ahaayay aad tiraahdaan xawaaro dheer ku socoto iminka gaariga ugu horeeyay booyadii muxuu ahaayay xawaarihii markuu jiiray kama qaban uuna arkayay inay dhayna meesha ku dhacay waa habeenimo ha ahaato ama maalin ha ahaato Soomaalidu waxay tiraan nin gaar fartaagay baa la helaa bay tiraa ilaahay baa ku soo qabtay eedeysanahaas marka waxaanu jecelahay kulay oo oran mayno sharciga wuxuu ku qabo un baanu marin doonaa hadda la yiraahdo waxaana loo hayaa fil dambiga dhacay 7 eedeysane oo baaristii ay ku soo baxday oo 3 kamidii ay ku eedisay yihiin inay geysteen shilka dhimashada oo aanu maxkamadda horgeyn doono oo 2 kamidii aanu hayno qiraal maxkamadeedna ay bixiyeen eedeysanayaasha 3 mid kamidina uu maqan yahay eheladiisina isagina waa la aqoonsaday ehelkiisina waa kulay loo hayaa waana lagu daba jiraa isagana in la soo qabto waxa kale loo hayaa afareedaysano oo kale oo iyaguna ka qayb qaatay qarinta dambiga oo oga shilka dhacay in qofkaasi gaadhi dhayna ka dhacay laba booyoodna iska daba mareen arinta iyo falka xunna qarintiisa ay qayb ka qaateen dadweynaha waxa ku waajiba qofka muwaadinka ah mas'uuliyadda koobaad saaran ayaa ah markuu fal dambi noocaas oo dhimasho ama toogasho ama nooc doonaba ha noqday inuu u soo sheego ciidanka booliska si loo daba galo eedeysanaha loo soo qaban karo dadku haddaanay caawinin dawladdii oo wada shaqeynay aanay jirin waxbay noo suurtageli maayaan eedeysanayaasha ogaa fal dambiga dhacay oo 4 oo qariyayna oo aan u soo sheegin hay'adihii amniga iyo garsoorka iyagana waxaanu ku eedeynaynaa qarin dambi intii ka hawlgashay in kastaba aad baan uga mahad celinayaa waxaan si gaar ah uga mahad celinayaa ehelada marxuumka dhintay oo iyadan wali waxba aad u cadeyn markaan ka tashanay meydka aasay aad iyo aad baan uga mahad celinayaa waa taariikhday gashay dadku meydkooda way dugsan jireen si sharaf loo aasay aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa
waxaa kaloo halkan u baaq saraakiisha kala dhamaysan waxaan baaq u dirayaa dadka booyadleyda ama gaadiidleyda waxaad arkaysaa dad mas'uul ahayn oo ama caruura oo baabuurta loo soo dhiibayo oo xilba saarayn waxaan leenahay ninka dadka booyadleyda gaadiidleyda war gaarigaaga qof mas'uul ah oo ka bixi kara u dhiibo cid walba iskaga dhiibine dadka inta shilalka dhaca dadka waxa dhaqankeena ama Soomaaliyeed ahaa qofku markuu dhinto inuu qofku qaado oo geeyo halka ku haboon laakiin wax ka carara waa mid cusub waxa la qofka ka cararow sharciga u baa ku soo qaban waxa aad iyo aad inoogu cusba oo aad u fool xuma oo aynaan dhaqan u lahayn waxaan arki jirnay baabuurku markay wax jiraan baabuurtu maaha falkaasi fal camdiye maaha qaar iyagu sitaabi iman jireen oo saldhigyada iyaga iman jiriba waxaan dhacay qofkan jirnay laakiinse waxay nagu cusbaa in kiis dhan oo 3 gaari hadda aynu hayno 3 gaari iska daba mareen oo baabuurka ugu horeeyay ay rakaab saarnaayeen in dhammaan la isku dayo in la wada qariyo kiiskaas kiis nagu cusub baa waxaynaan wali aragoon dhaqanna inaan u lahayn baa waxaan leeyahay inuu dib inoogu soo noqonin kamaantana wadadeeda la marin doonaa dadkaasi iyo sharciga anagu ka eelahan waxaan isku daynay runtii inaanu xakamayno oo is xakamayno inaanu la shaqeyno ciidankii baadhayay ee booliska wadooyinka iyo madaxdii kala duwan xeer ilaalintu ay ka mid ahayd aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinayaa dadaalkii xooganaa ee qiimaha badnaa ee ay galeen ilaa ma iyo saacadii shilku uu dhacay 13kii bay ahayd baan filayaa 13kii bishan July goor habeenimo 7dii abaalo 7dii fiidnimo ahayd buu dhacay kiisku ilaa waqtiga ilaa maanta runtii shaqeynayay dadaal fara badan sameeyay